nebi idriis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ka mid ahaa nebiyada eebba korahaye uu qur-aankiisa ku tilmaamay inuu yahay nebi iyo rumeeye dhab ah sida uu qur-aanka ilaahay ku yidhi. nebi idriis nabadgelyo korkiisa ahaatee waa nebigii ugu horreeyey ee noqda nebi kadib nebi aadan iyo inankiisii shayt. waxaa la yidhaahdaa inuu soo gaadhay oo uu noolaa waqtigii nebi aadan 308 sannadood. waxa kale oo uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee qalin wax ku qora sida laga soo wariyey ibnu isxaaq. sidoo kale nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam waxay isku arkeen habeenkii la dheelmiyey samada afraad oo uu ku sugnaa nebi idriis. taariikhyahanadu waxay isku khilaafeen meesha uu ku dhashay nebi idriis. waxa la yidhi waxay ahayd baabil oo ku taalla ciraaq. sidoo kale waxa lagu sheegay masar, waana tan ugu badan ee ay culimmadu qabaan. nebi idriis waxa uu shareecadii lagu soo dejiyey nebi aadan iyo nebi shayd ka qaatay nebi shayd barasho iyo ku camalfalidba ilaa intii uu nebiga noqonayeyna sidaas ayuu u haystay shareecadaas. sidoo kale waxuu qoomkiisii ugu yeedhay inay rumeeyaan eebbe weyne oo keliya, sababtoo ah waxay ka lumeen shareecadii nebi aadan iyo nebi shayd lagu soo dejiyey. waana ta keentay inay ka dhex dhacaan khilaaf, cadaalad darro iyo ka talabshada sharcigii ka horreeyey ee loo soo dejiyey. sidaa ayuu muddo badan dadka ugu yeedhayay xaqa, akhlaaqda, adeecidda ilaahay iyo rumaynta sharcigiisa. nebi idriis waxa uu joogay dhulka 800 oo sano. markaas ayuu ilaahay kor yeelay oo samada afraad uu u geeyey sida uu ilaahay korreeye qur-aanka ku xusay. qur-aanka kariimka ahi waxa uu in ka badan hal meel ku sheegay nebi idriis inuu ka mid yahay nebiyada ilaahay oo uu u soo diray qoomkiisii oo ay waajib tahay in qofka muslimka ahi uu rumeeyo. waana tiir ka mid ah tiirarka iimaanka inuu qof waliba rumeeyo. suuradaha lagu xusay nebi idriis magaciisu waa maryan iyo anbiyaa. nebi idriis waxa uu ahaa nebi uu ilaahay soo diray. waxa uu ahaa mid barakaysan. waxa uu ahaa qof saalaxa. waxa uu ahaa qof hanuunsan. waxa uu ahaa qof la doortay. waxa uu ahaa qof samir badan. waxa uu ahaa qof naxariis badan. waxa uu u ooyi jiray dar ilaahay. waxa uu ahaa qof sujuud badan. waxa uu ahaa qof uu ilaahay u nimceeyey. markana ah geeridii nebi idriis. culimmada tafsiirku waa isku khilaafeen geerida nebi idriis nabadgelyo korkiisa ahaatee, maxaa yeelay waxa uu ilaahay qur-aanka ku yidhi warafacnaahu makaanan caaliya. culimmada tafsiirku waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa kor u qaadidda mid dhab ah oo naftiisa loo qaaday samada afraad. waana tan ugu saxan uraahyada ay culimmadu isku khilaafeen, inkastoo aan la hubin arrintaas. sidaa darteed waxa ku sugan xadiiska uu nebigu nabadgeliyey naxariis korkiisa ahaatee ku soo maray samada afraad habeenkii la dheelmiyey. dhanka kale khilaaf kama taagna inay geeridu u timi oo wedku uu nafta ka qaaday nebi idriis, balse naftiisii iyo jidhkiisiiba la geeyey samada afraad. halka nebiga keliya isagoo aan geeriyoon samada uu ilaahay u qaaday uu yahay nebi ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee. fiiro gaara qisada nebi idriis maadaama ay ku badan yihiin urahaha kala duwan iyo taariikho badan oo aan sugnayni, waxaanu u soo koobnay si guud oo xogtiisa badankeedu waa xog lagu kala duwan yahay.